Diyaaradan oo sidee 207 rakaab ah ayaa ku wajahneyd dhinaca dalka Turkiga, waxaana ay la kulantay cilada dhinaca oksijiinta kadib markii uu gabaabsi ku noqday xilli ay sii galaysay hawada dhinaca dalka Itoobiya, sida ay sheegeen maamulka hay'adda duulista rayidka ee garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in diyaaraddu ay si nabad ah ku soo caga dhigatay iyadoo ay eegayaan ama ay hubinayaan injineerada shirkadda duulimaadka ee Turkish Airlines si loo hagaajiyo ama loo bixiyo cilada. Turkish Airlines ayaa bilowday duulimaadyo joogto ah oo ay ku timaado dalka sanadkii 2012. Turkiga ayaa ah saaxiibka ugu awoodda badan oo isticmaalay $1 bilyan sanadkii 2011, taa oo isugu jirta gargaarka iyo soo celinta kaabayaasha dalka ee burburay 30 sano ka hor. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, Warbaahinta Qaranka, Garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho.